madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xariga ka jiray bangiga Premier oo bixinaya adeegyo caalami ah oo aan wadanka Soomaaliya hore looga heli jirin isla markaana ganacsatada Soomaaliyeed ay u istaagtay in bangigan ay ka hirgeliyaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. munaasabad lagu qabtay xarunta bangiga ee Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, wasiirka maaliyadda, arrimaha gudaha iyo federaalka, gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo shaqaalaha bangigaasi. ugu horeynna gudoomiyaha bangiga Premier Jibriil Xasan Maxamed ayaa uga xog waramay mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi adeegyada uu bangigana bixin doono. waa bangigan asaas Soomaaliyeed leedahay waa bangi dadku bangi marka la yiraahdo waxa u soo baxaysa maanta business aad furatay oo faa'iido ka rabto, laakiin waxa rabaa in dadku ogaadaan una sheego philosophy-ga oo bangigan ku dhisan yahay inaysan ahayn lacag ka sameeyo ay tahay ummadan Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee dhibaato badan soo martay ee runtii yani financial system-ka adduunyada dhan ba laga gooyay wax access u lahayn inaan ku soo celino. sida daraadeed hal la ogaado falsafadeena waxay tahay. sidoo kale wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti ayaa sheegay in looga baahan yahay ganacsatada Soomaaliyeed inay hirgeliyaan adeegyada noocan oo kale ah. sababtoo ah waxay lagu garanayaa buluugta caalamiga dhan ayaa iyaga muuqda halkan. waxaan ku ammaanayaa madaxda bangigan iyo milkiilayaasha maartay hawshan maartay quruxda badan ay qabteen oo wadanka ay u qabteen, shacabka ay u qabteen. marka bangigan wuxuu saacidayaa arrintaas aad iyo aad u saacidayaa, wuxuu isku xirayaa Soomaaliya iyo caalamka inteeda kale, wuxuu saamaxayaa inuu keeno maartay adeegyo oo maartay hore uga maqnaa Soomaaliya oo caalami ah. ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan waxa uu ku tilmaamay inay tahay tilaabo kale oo dalka dhinaca horumarka u qaadaya adeegyada cusub ee uu soo kordhiyay bangigan Premier, isagoo dhinaca kalena ku dhiirigeliyay ganacsatada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan maalgelinta dalka. ma baahin oo qarash iyo ticket iyo maxaan ku raadaya qata iyo waliba bariyahan safaradu ay dhibateen oo sidoo hore aan u sahlanayn oo loo safri jiray. marka waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay isticmaalaan bangiyada bangigan iyo kuwa kale oo dalka ka furan oo fursadaas bixin karo dhan in ay isticmaalaan oo ay ku dhaqmaan nidaamkaas. annagu haddii aan adduunyada muddo ka maqnay nidaamkeeda sida u shaqeyso hadda inaan ku soo noqono waa inaan Cabdiraxmaan Cilmi, Hoon Cable TV, Muqdisho.